السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada asxaabta waxaynu ku soo guday jirnay koorsadeeni SQL ayaynu ku soo guday jirnay inagoo casharaantii ka horeeyay kaga soo hadalnay sida database loo sameeyo sidoo kale table-lada loo sameeyo xogna loogu guro. maanta waxaynu ka hadli doonaa 3 qodob oo muhiim ah kaas oo ku saabsan qodobka koobaad oo ah in aynu column jiray aynu magaca ka bedelno ama aynu renaming ku sameeyno column jiray. sidoo kale waxaynu ka hadli doonaa inaynu search gareyno xog hore u jirtay inagoo by individual ama shakhsiyaad gaara ku baari doona. sidoo kale waxaynu ka hadli doonaa qodob kale oo muhiim ah kaas oo ku saabsan inaynu xogteena aynu saarno ama aynu delete ku sameyno inagoo oo aan adeegsanayn delete laakiin adeegsan doona qodob kale oo la dhaho truncate kaas oo kuu qabanaya inaad xogta dhammaantood aad wada saartid adigoo oo aan dib u soo celin karayn. marka truncate markaad adeegsanaysid waa remove all rows from table waxa uu saarayaa dhammaan rowska ama jiifutaxaaga kala duwan ee table-ka. sidoo kale dib looma soo celin karo ayuu ku yiri truncate-ka marka aad adeegsatid xogtaadii dib uma soo celin kartid. marka waxa muhiim ah haddii ay xog muhiim ay kugu jirto database-kaaga inaad ka taxadartid. haddaba ugu horeyn markaynu adeegsanayno qodobadan kala duwan waxaynu horeysiin doonaa inaynu renaming aynu ku sameyno column ka mida column-yadeena. marka waxaynu soo eegi doonaa table-keenii ayaynu soo eegi doonaa kadib waxaynu rabnaa inaynu magaca aynu ka bedelno mid ka mida columnskiisa. table-keenii markuu sidan inoogu soo baxo waxaynu rabnaa inaynu column-ka name la dhaho aynu magaca ka bedelno inagoo wax kale sii raacin doona. marka ugu horeyn waxaad ka bilaabaysaa inaad qortid codeskan soo socda. tusaale ahaan waxaad leedahay sb rename ayaa leedahay. sb rename markaad sidaas aad u qortid waxaad qoraysaa amaba aad gelinaysaa table-ka magaciisa. tusaale ahaan table-keena waxaa la dhahaa product. waxaad gelinaysaa table-kaaga magaciisa oo product la dhaho kadib waxaa leedahay dot adigoo tilmaamaya column-kii aad bedelaysay. waxaad tilmaami doontaa column-kii aad bedelaysay magaciisa ayaad sheegaysaa. tusaale ahaan waa name markaad sidaas u tiraahdid waxaad leedahay comma kabacdi waxaad sheegi doontaa waxa aad ku bedelaysid. tusaale ahaan waxaynu ku bedeli doonaa name product name ayaynu ku bedeli doonaa. kadib waxaad cayimaysaa waxaan la bedelayo waxa uu yahay waxaad leedahay waa column weeyaan. intaas markaad qortid waad execute gareyn doontaa koodhka yar fudud ayaad u adeegsan doontaa inaad bedeshid columnskaaga. kadib waxaynu isla arki doonaa iyadoo loo bedelay magacii column-ka. waa ujeedaan waxa uu yiri waa changing party of the object name. waxa uu kuu sheegayaa amaba uu yiri waxaa la bedelay column ka mida column-yadaadi. hadda haddaynu soo eegno column-keenii waa la bedelay magaciisii. marka sidoo kale waxaynu isla arki doonaa qodobka labaad oo ah inaynu searching aynu ku sameyno. tusaale ahaan xog ayaa inoogu jirta table-keenan waxaynu rabnaa inaynu dadka qaar aynu baadhno. markaa dhowr hab ayaad u baari kartaa amaba searching ugu sameyn kartaa.
marka waxaynu ku baari doonaa xarafka u horeeyo kale ayaynu columnkaas aynu ku baari doonaa magaca kabacdi amaba waxaynu ku baari doonaa xarafka u dambeeya inaynu sheegno oo aynu yiraahdo xarafkaas hal inoogu baaro amaba waxaynu ku baari doonaa xaraf ku jira dhexda amaba magaca dhexdiisa ku jira ayaynu ku baari doonaa marka waxa leedahay ugu horeyn inagoo ku baari doona xarafka u horeeya waxa leedahay select all from kabacdi waxa sheegaysaa table-kaaga magaciisa marka aad sheegtid waxaynu sheegnay amaba aynu niri select all from product ayaynu kabacdi waxa leedahay where ama waxaad adeegsan doontaa qodobka la dhaho where close kadib markaad adeegsatid waxa leedahay name of product oo waxaad sheegaysaa column-ka magaciisa column-kaaga magaciisa ayaad sheegi doontaa kadib waxaa leedahay iigu raadiya ayaa leedahay like ayaa leedahay iigu raadi kadib waxaad sheegi doontaa ama waad qori doontaa percentage kabacdi waxaynu ka horeysi doonaa xarafka e tusaale ahaan wixii magaca ee ka kacaba ha la ii searchin garayo markaas waxaa ku jira iminka cali iyo aamina labada qof ayuunbaa ku jira wax ee ka kaca sidaas ayaa la inoogu raadin doonaa waxaa laynoo soo saaray laba qof oo ka mid a ayaa laynoo soo saaray sidoo kale marka aad rabtid inaad adeegsatid xarafka u dambeeya inaad qortid waxaa leedahay intii oo kale ayaa soo qoraysaa kabacdi waxaad kaga duwaysaa halkaa dambe oo ah percentage-ka ayaad waxaad ka hormarin doontaa xarafka aad rabtid inaad ku baadhid waxaynu ka horeysiinay percentage-kii ayaynu imika horeysiinay kabacdi isagana sidaas ayaynu ku execute garayn doonaa isagana waxaa laynoo soo saarayaa dhammaan xarafka ugu dambeeya m oo kale ayaa laynoo soo saarayaa markaa waa Yunis Ibrahim oo kale markaa xarafka ugu dambeeya m ama magaca ugu dambeeya m ayaa laynoo soo saaray sidoo kale waxaa jiri doonta mar aad ku raadin doontid xarafka u dhaxeeya aad ku raadin doontid marka iyadana laba percentage intaad qortid ayuunbaad xarafka aad rabtid inaad ku raadisid aad dhex gelinaysa isagana sidaas ayaa lagugu soo saari doonaa xarafka aad u baahantahay ama magaca aad u baahan tahay intaas markaynu kasoo gudubno waxaynu u gudbi doonaa qodobkeenii kale ee ahaa truncate sida loogu sameeyo table-ka amaba dhammaan xogta table-ka loo baabi'iyo marka halkan waxaa inooga muuqda table ka mid ah table-ladeenii hore u jiray kaas ayaynu soo eegi doonaa xogtiisa kabacdi waxaynu ku sameyn doonaa truncate inagoo dhammaan xogtoo dhan ka saari doona markaynu sidaas usoo eegno table-kaas waxaynu rabnaa inaynu xogta ku jirto oo dhan ka saarno marka waa kan table-keenii inoo soo baxay waxaa ku jira laba row ayaa ku jira amaba xogta intaa leeg ayaa ku jirta marka waxaynu ku sameyn doonaa truncate ayaynu ku sameyn doonaa horeyn waxaynu qoraynaa truncate kabacdi waxaynu ku xigsiin doonaa table kabacdi table-kaas magaciisa ayaynu sheegi doonaa kadib sidaas ayaynu ku execute garayn doonaa marka waxaynu isla soo eegi doonaa table-keenii in xogtii laga saaray iyo in kale
marka aynu soo eegno table-keeni dhammaan xogtii ku jirtay oo dhan waa laga saaray. asxaabta casharkeenu maanta waxa uu ku eegayahay 3 qodob ee muhiimka. waxaan inaga codsan lahayn inaad channelka noo subscribe gareysaan, asxaabtiinana la wadaagtaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.